السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودو كانالka Afifa Warsame maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago barnaamijkii ahay ila qorshay oo waxaan isku dayaynaa inaan si wada jira maaragtay aan u qorshaysano bisheena September ee soo socota ka hor intaanan September aanan qorshaysan bal aan ka fikirno bishii hadda soo dhamaatay ee Agosto. waxyaabihii aad qorshaysatay sidii aad rabtay ma u dhaceen yacni naftaada bal isku day inaad la xisaabtanto maaragtay naftaada aad dabagal ku samayso yacni qorshayaashii Agosto aad degsatay sidii la rabay aad u wada gudatay iyo maaragtay in aadan u gudan waxyaabaha aad rabto inaad wax ka bedesho waxyaabaha maaragtay aad ku faraxsan tahay oo aad samaysay yacni dabagalkaas naftaada ku sameey si aad u hesho fursad aad wax cusub maaragtay bisha September aad u qorshaysato mise waxyaabihii aad hore u qorshaysan jirtay si aad wax uga bedesho maaragtay mise qaabkii aad wax u sameey jirtay qaab ka duwan aad wax u samayso isku dabal marka koowaad inaad Agosto aad naftaada gadaal ugu milacsato kadibna September aan u imaano September marka la joogo aniga waxa ay taalo 6 qorshe ayaa ay taalo waxa laga yaabaa adigana ka badan inaad qorshaysan doonto qorshaha koowaad oo September yaala ayaa waxa uu yahay inaan 4 buug aqriyo awal yacni adiga bilii hadda lasoo dhaafo dhan laba buug aqrinay laakiin toobkadan hadii ilaahay waxa aqri doona 4 buug laba buug waxay noqon doonaan luqadda Ingiriiska laba buug ku qoran labada kalena waxay noqon doonaan luqadda af Soomaaliga laba buug ku qoran marka afartaas buug ay qorshaysan bishan September hadii ilaahay qorshaha labaad oo bisha September aan leeyahay ayaa waxa ay tahay maadaama jaamacaddu ay bilaabanayso bishan September dhexdeeda ay bilaabanayso marka anaga jaamacad noo bilaabanayso waxa sameeynaa maadooyinka anaga semesterka aan qaadanayna anaga doorano hal isbuuc maadooyinkaas iska fiirinay hadaadan ka helin mise ay kuwa adkaadaan waa iska bedelay kuwa kala doorana dabcan kuwa way jiraan aad dooran karin laakiin waxa dooranay waxa ay kala bedelaysaa waxay tahay waqtiyada maadada aad qaadanayso oo hadii ma aragtay maadadan doorato inaad subax qaadato isbuuca kood ay kugu adkaato waxa fursad u haysataa inaad maadadan galab ka dhigato mise caawa ka dhigato fursad noocaas haysataa marka waxaan isku dayaa isbuucan hadda marka maadooyinka aan isdiiwaan galinayno in horta marka koowaad sida ugu saxan aan maadooyinka u doorto yani jadwalka ugu saxan aan maadooyinka u doorto oo marka koowaad jadwal aanan naftayda ku haboon ana ila jaan qaadi kara inaan maaragto doorto oo aanan dhihin markaan isbuuc dhigto kadib aan bedela oo go'aanka ugu wanaagsan horta marka koowaad aan isbuuc u horeeyo gaaro sidoo kale waa in aan maaragtay markii aan maadooyinkaas qorshaysto waa inaan degsado jadwalka aan ku socon doono semesterkan aan ku socon doono sababtoo ah semesterka marka uu maaragtay inta uu socdo waxa la rabaa inaad qorshe lahaato maado kasta intaad aqrinayso maado kasta maaragtay xilliga aad aqrinayso yacni waxyaabahaas oo dhan oo ku saabsan oo adiga maaragtay aan semesterkaas aan ku socon doono waa inaan bisha September aan qorsheeyaa oo September aysan ila dhaafin haday noqoto qorshe wax aqris yacni waxaas oo dhan hadii ay noqoto aysan ila dhaafin September wax kasta oo maaragtay hanaan walba wada walba oo semesterkan aan raaci doono waa inaan qorshaystaa bisha September dhexdeeda sidoo kale qorshaha saddexaad ee aan leeyahay ayaa waxa ay tahay maalinta ay bilaabato jaamacaddu waa inaan maaragtay anigana aan bilaabo wax aqriska aan la bilaabo maadaama maadooyinkii aan rabay aan doortay maadaama xilliyadii aan rabay aan doortay oo wax qalqala aanan ka qaban yacni inaan bedel ku sameeyo waa in isla isbuucaasba wax aqriska aan bilaabo si hadhowti ay igu fududaato maaragtay inaan cashirada la qabsado in maaragtay nolosha semesterka ay ii fududato oo aan la qabsado waa inaan isla isbuucaas maaragtay aan wax aqrinta aan bilaabo maado kasta inta saacadood loogu talagalay aqrinteeda aan bilaabo maado kasta xilliga aqrintiisa loogu talagalay aan bilaabo sidoo kale qorshaha afaraad ee aan leeyahay bishan September ayaa waxa uu yahay in aan hagaajiyo jadwalkayga hurdo maadaama hadda fasax lagu soo jiray aysan jirin yacni wax pressure badan aysan jirin habeenkii xilligii la rabaa la iska seexanay subaxdii xilligii la rabaa la kacay marka qorshahayga afaraad ee bishan September aan sameeyahay waxay tahay in aan maaragtay jadwalkayga hurdo hagaajiyo habeenkii waqti cayiman inaan seexdo oo hore subaxdiina waqti cayiman oo hore inaan kaco yacni taas waxay iga saacidaysaa waxay tahay in maanta xiisadaha marka aan leeyahay xiisad walba sidii la raba aan u qaato oo maanta intaan xaladhan soo jeeda aanan ka caajisin iyo sidoo kale in maantii aan ka faa'iideysto waqtiga oo maaragtay inta badan aniga dadka maantii inay wax aqriyaan jecel ah habeenkii inta badan inaan wax aqriyo ma jecli aan ka faa'iideysto waqtiga maantii oo aan si fiican maaragtay maalintii haddaan habeenkii dhaqso seexdo subaxiina aan dhaqsi soo kaco yacni maalintii waqti dheeraan haysana taas ii suurto gelinaysa inaan wax badan wax aqristo marka inaan jadwalkayga hurdo hagaajiyo si aan maaragtay wax culaysaada aan u dareemin bas waqtiga uusan xiriir iigu noqon qorshaha shanaad ee aan leeyahay bishan September ayaa waxa ay tahay
in hadduu ilaahay ku idmaayo isbuuc walba 2 video aan idinla soo wadaago sidoo kale aan isku dayo fiiro gaara inaan ka warhayo oo markii maaragtay mowduuc aan soo jeedsho yacni mowduuc laga qori karo uu yahay aan qoraal u bedelo mise hadduu buug yahay mise hadduu maaragtay mowduuc kale ka bannaan uu yahay adiga aan isku dayo inaan fiiro gaara nooleeyo sidoo kalena videoyo adinka aan idinla soo wadaago isbuuc walba 2 jeer yacni ilaa hadda ma go'aamin karo labada maalin ee aan idinla soo wadaagi karo ma go'aamin karo inaan laakiin midda qorshahayga ku jirtaa inaan isbuuc kasta maaragtay labadaas video aan idinla soo wadaago qorshaha ugu dambeeya 6aad aan leeyahay ayaa waxay tahay in subaxii markii aan soo kaco yacni adiga markaan salaada tukado cadaysto adiga waxyaabahaas yararka marka aan qabsado kadib waa inaan subax kasta 20 daqiiqo oo jimicsi aan sameeyo yacni muhiim ma ahan haddaan maanta banaanka u baxay haddaan socod sameeyo haddaan socod sameyn haddaan guriga fadhiyo muhiim ah waa in subax kasta 20 daqiiqo oo maaragtay exercise aan sameeyo qofka bini'aadanka marka uu jimicsi sameeyo mise orod uu sameeyo yacni waqti uu sameeyo cayiman uu sameeyo waxa u siyaadaysa tamartiisa way siyaadaysa yacni mar walba inta badan waan ka hadlaa qofka inuu exercise sameeyo faa'iidada ay leedahay tamartaada siyaadaysa firfircooni badan aad dareemaysa xitaa mararka qaar inaad dhiiranaana dareemaysa motivation aad dareemaysa inaad horay tilaabo u qaado inaad wax samayso ayaad mararka qaar dareemaysa caajiska dhan ayaa kaa tagayo xitaa waxaa laga yaabaa in cudurro kale waxyaabo jireed adiga maaragtay dhabar xanuun waxyaabo iska kaa qabo xitaa waxaa laga yaabaa markaad exercise kaa samayso inay maaragtay waxyaabahaasi ay kaa baan marka qorshahayga way igu jirtaa in bisha September aan joogtay doono 20 daqiiqo oo subaxa aroortii ah yacni ma ahan maalinta dhexdeeda habeenkiina ma waa subaxdii aroortii marka 6daas waxyaabood oo ah in 4 buug akhriyo inaan jadwalkayga aan degsado oo semesterka soo socda ah iyo sidoo kale inaan wax akhris ka bilaabo iyo ma aragtay inaan videoyo in la soo wadaago jadwalkayga hurda inaan hagaajiyo iyo inaan jimicsigaas subax kasta sameeyo 20 daqiiqo waa qorshayaasha ugu waaweyn ee bisha September ma aragtay aan rabo inaan sameeyo marka bal adigu ka fikir qorshayaal noocee ayaad rabtaa inaad bisha September aad samaysato isku day yacni maaragtay buugta aad akhri rabto inaad ka fikirto isku day haddaad caado samay rabto caado cusub aad samay rabto haddaad caado iska jararto dabcan bishaada qorshayso qorshahaas inaad qorshe degsatana waxaad maaragta dareemaysaa inaad isla xisaabtan aad haysato dadka qaar waxaa laga yaabaa inay waxaan joogtaan inay ku adagto laakiin marka waxa qorshaysato aad meel ku qorato waxaa kugu kalifmaysa inaad maaragtay tilaabo hore u soo qaado sababtoo yacni waxaad arkaysaa ama dareemaysaa inaad naftaada la xisaabtamayso marka intaas rabaa maanta inaad la wadaago ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.